waxaan aad uga naxay oo waxaad looga naxaa nin baa wuxuu ii sheegay haweeney Soomaali ah Ingiriiska ka dhacday qisadu sida la ishay nin baa wuxuu u dhiibtay lacag u dhiibtay ganacsi bay wadatay kadibna waxay tiri lacag aan ganacsiga kuugu darakeen ganacsigii markii lacagtii uu dhiibay bay inkirtay oo tiri waxa maada ii dhiiban maxkamadda Ingiriiska la isla tagay war maxaad cadayma haysataa markhaati uu keen ayadiina markhaati beenaal bay keento Soomaali ah maxkamadii baa la isla yiri dhaara la yiri ninkii lacagtu ka maqnayd kitaabka quraanka la hordhigo waxa la yiri gacanta saaro dhaaro wuu dhaartay gabadhii baa loo yeedho quraanka la soo hordhigo waxa la yiri dhaaro kitaabka iga durkay bay tiri horta kan xaga iga durkay kitaab ay mulxidiintu leeyihiin mulxidiinta waa dadka aan diinna rumaysnayn oo meesha yaalay bay tiri kan aan ku dhaaranay quraankiina waa iska leexisay oo soo muslimati war waxaan doonay aan ahaaday kan ii soo dhaweey kan aan ku dhaaranay kiibay baallaha goysay labadii la socday markhaatiyada hay nimanka haba la yiri idinkana ma dhaaranaysan ha waa dhaaranayna oo maxaad ku dhaaranaysaan kitaabka quraanka ku dhaaranayna xaakimkii Ingiriiska waa diiday wuxuu yiri kitaab quraanka ku dhaaran maysaane kan ku dhaartay kan ay saaxiibtiin ku dhaaratay ku dhaartay maxay sameynayaan kiibay baallaha gooyeen kitaabkii mulxidiinta bay iyaguna baallaha gooyeen xaakimkii Ingiriiska nin aqli badan buu ah wuxuu ku yiri naagtii iyo nimankii iswatay adduunka waligay intaan qaali ahaa buu yiri dad idin ka been badan ma arkin waligay intaan u soo joogay khalqi idin ka been badan ma arkin qadiyadiina waa xukumay oo wuxuu u xukumay ninkii xooluhu ka maqnaayeen ayagana wuxuu yiri beenaalayaal baati waxa qariib ah marka gabadh muslimada iyo dad muslimiin ah kayf oo islaamnimo sheeganay quraanka inta la iska duriyo kitaab ilhaadaha lagu dhaarto واي دين في هذا الرضا بالاسلام دينا وان دين الاسلام ككليجت ان حتى الرميسنت وحي كسو هرينا انه باطل يعني قodobka u dambeeyay wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inuu ruuxu raali ku noqdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rasuulnimo raali ugu noqdo inuu rasuuli waxa ka dhalanaysa inaad raali ku noqdood ku qanacsan tahay 100% ama 200% inaad ku qanacsan tahay in ilaahay soo dirsaday nabi maxamed sallallahu alayhi allah baa hadalkiisa u soo dhiibay khalqigana u soo diray soo diridiisu xaq bay ahayd kitaabka quraanku noola yimid wax alla wuxuu noo sheegayna run bay ahayd wax alla wuxuu noo jideeyayna waa xaq markaad rumayso kadibna inaad jeclaato oo haday ku suroobi karto iimaanka qaybihiisa sare weeye inaad xataa ka jeclaato wax kasto jecesha jacaylkiisu kala weyn yahay jacaylka xataa ehelkaaga caruurtaada xaaskaaga xoolahaaga wax walba jecesha inaad ka jeclaato kadibna inaad dariiqiisii raacdo oo isaga keligii aad rumayso inuu yahay cidda mudan in la daba galo sharcigiisii iyo sunnadiisii inay tahay midda kaliyeetee naloo jideeyay inaan nolosheenna aan ku miisaanno daba galo oo cid kale too la raaca ayna jir la sheekh wala caalim wala xaakim wala ahad kale oo mudan wixii ka soo fulaba in lagu raaco ma jiro miisaanku waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo dariiqiisii waa asagaasi wixii uu saxana waa saxsan yahay wuxuu khaldana waa khaldan yahay dadka intooda kale oo isaga ka soo haray wixii ka soo fula waxna waa laga qaataa waa wixii xaq waafaqo miisaanka waafaqo wixii ka soo fula waxna waa la diidaayo waa wixii xaq iyo sunnada khilaafo way isaga keligii baa mudan marka si buuxda in loo raaco oo aan waxba laga hortay ya waana midda jannada lagu helay nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ummadayda oo dhan jannada ay galayaan ilaa cidii diida mooyee yaa diidaya janna rasuulilaahi nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam cidii ateecdo jidkayga raacdana jannada ay gali cidii caasido garab martana jannadii waa diiday yani janna ma helayo intuu noolaa wixii gar ah iyo wixii khusuuma in isaga loo geysto raalina nagu noqdo wixii xuguma uu soo saaro
markuu dhintay kadibna sharcigiisii iyo sunnadu ka tagay inay dadku u xugum tagaan allahumma inay xaalad daruura timaado mooyee rabbi wuxuu leeyahay ma aydan rumaynin iimaan dhab ana laydinkama helin oo dhammaystiran ilaa aad isaga u gartagtaan ood garsoore ka dhigataan oo xaakim aad ka dhigataan oo waxaad isku qabsataan isaga u geysaan kadibna markuu idin kala saaro aad ku qanacdaan oo waliba raalli ku noqotaan hadduu dhintayna sunnadiisii baa taala sharcigiisii baa yaala inay muslimiintu halka ku kala baxaan oo garsoorka ku kala baxay xeerka ku kala baxay uu ka noqdo ayadana wax weeye waa qayb waa sidoo kale in aad nabiga qadariso oo aad qiimayso oo aad sharafto oo hadduu dhintay iyo hadduu noolaaba ummadiisa wuxuu ku leeyahay qadarin buu ku leeyahay inaad salligiisa badiso salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ay ka mid noqoto qayb ka mid ah cibaadaadka ilaahay aad ugu dhawaanayso salliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo ducada loo ducaynay wahakada sidaasaad iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa aad ku helaysaa rabbi inaad raalli ka noqoto rabbinimo raalli ugu noqoto islaamkana diin ahaan raalli ugu noqoto نبي محمدنا الرسول أهان رالي ونقط صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك